ولا لهن لحيت مثلا لا joogaan waxaan karaana maqaalkan laga qoray waxay soo sheegeen dadka aqoonyahanku inay af Turkigu noqon doono luqadda labaad ee ugu hadalka badni Afrika Somalia haddana boqol kun oo Somali ku hadlaan af Somali buuxa oo communication dhamaystirna lagu wada hadli karana laakiin se dad hamigooda ku yahay ba inay Afrika ka dhigaan afka labaad ee laga hadlo uu noqon doono Turkigu waxay toos ku tusaysaa inuu san ujeedkooda ahayn kaliya adiga dhaqankaaga iyo hidadaada aan ku ixtiraamo oo aan ku barana wixii aan ku bari karo wixii kugu fudud ugu dhaqsada badan Europeanka kale markay imaanayaan Afrika waxay isku dayeen ku xitaa inay haddii aqoon ku barayaan inay ku dhahaan bal aniguna af Soomaali kuma hadliye adiguna kuma baahdayshiba af Finnish Ingiriisigan naga wada dhaxeeya oo internationalka ka xitaa ku barta anigana wuu culus yahay adna ku culus yahay laakiin at least adduunka meel walba ka shaqatay karta kuna baran kartana dadka laakiin maanta af Turkiga ku barta ama Turkiga ama Soomaali u shaqatay karana wadamada kale waxay noqonaysaa inay af kala bartaan oo Ingiriisiga way ka guureen Soomaaligoodina waxa la yiri waa Turkiga ka hormarisiin